waxaa maanta magaalada Garowe caasimadda maamulka Puntland si rasmi ah ugu furmay shir ay leeyihiin guddiga farsamada ee golaha mustaqbalka Soomaaliyeed kaas oo diiradda saaraya diyaarinta tubta wada xaajoodka doorashooyinka dalka. Shirka ayaa ah mid ka dhashay go'aanadii iyo talooyinkii laga soo saaray shirkii Kismaayo oo lagu gorfeeyay hanaanka doorashooyinka iyo mustaqbalka siyaasadeed ee dalka. Guddiga farsamada ayaa inta uu shirku socdo ka doodi doona arrimo ay ka mid yihiin sidii loo dhisi lahaa hanaan wada tashi oo loo dhan yahay loogana wada qayb qaato hirgelinta doorashooyin hufan xor ah isla markaana waafaqsan dastuurka iyo xaaladda amni ee dalka. Sidoo kale waxaa la filayaa in guddigu soo jeediyo talooyin farsamo oo saldhig u noqon doono go'aanada siyaasadeed ee ay qaadan doonaan golaha mustaqbalka Soomaaliyeed. Mas'uuliyiinta ka qayb galaya shirka ayaa tilmaamay in kulankan uu yahay mid muhiim u ah mideynta aragtiyada ku aadan doorashooyinka isla markaana kor u qaadaya wada shaqeynta heer federaal iyo heer dowlad goboleed, waxayna hoosta ka xariiqeen baahida loo qabo in la helo hanaan doorasho oo ay wada aqbalayaan dhammaan dhinacyada ay qusayso. Shirka Garowe ayaa la filayaa inuu socdo maalmo, waxaana gabagabadiisa laga soo saari doonaa war murtiyad ay ku cad yihiin qodobo lagu heshiiyay iyo talooyinka la xiriira tubta wada xaajoodka doorashooyinka kuwaas oo loo gudbin doono golaha mustaqbalka Soomaaliyeed si go'aan kama dambeys ah looga gaaro.